السلام عليكم صاحبيال سيتهين دمانتين ما في عنتهين كسول هذا مقال عصب iyo barnaamij cusub oo taxanay loo noqon doona oo aan ugu magac daray talo iyo tusaale muuqaalkeena maanta markaa waxaan kula wadaagi doonaa saaxiibayaal laba qodob oo aad muhiim u ah isla markaana aad u adeegsan karto inaad ku joojiso caadooyinka xunxun haddii ahaan lahaayeen bilowdaha kala duwan ee lacagta iyo waqtiga kaaga ciyaara salaad la'aanta iyo caadooyinka kale laga yaabo inaad imika soo xasuusatay ama faraha baan kugu haya sidoo kale labadan qodob waxaad u adeegsan kartaa inaad ku bilowdo caadooyinka wanaagsan sida akhriska inaad isbarista xirfadaha iyo maaraynta waqtiga iyo waxyaabaha kale la midka ee wanaagsan labada qodob marka saaxiib yaal intaan idinla wadaagin ugu horeyn waxaan idin leeyahay waad ku mahadsantihiin soo furista muuqaalkan iyo daawashadiisa sidoo kale saaxiib yaal waxaan idinka codsanayaa in muuqaalkan like saartaan fikirkana commentigiina idinla wadaagtaan haddii aadan fikir haynin xataa commentiga waxaad kusoo qortaa mahadsanid ama emojiba allah ka dhiga wax un soo dir taasina markaa muuqaalka ay aad u caawinaysaa inuu meel fog uu gaaro اوكي labada qodob hadii aan u galo labada qodob oo laba qodob aad sagaaga dhow waxaana loo baahan yahay labadan qodob in maalin walba naftaada aad xasuusiso maaha toddobaadkiiba hal mar iyo laba mar laakiin ugu yaraan maalin walba in naftaada aad u sheegto taasoo markaasi keensanaysa in maskaxdaada waxaani ay ku kayso qaybta xasuusaha fogfog waxaana la yidhaahdaa waxyaabaha maskaxda qaybteeda xasuusaha fogfog lagu keediyo qofka bini'aadanka marka dambe waxay keensataa waxaasi inuu si automaatiga u qabto isagoo xataa mashquulsan ama meel kale ka fikirayo dabcan waad aragteen oo waxaa jira waxyaabo badan oo si automaatiga aad u qabanayso adoo fikirayo ama mashquulsan ama meel kale ku maqan maskaxdaada meel kale ku maqan tahay haddana si automaatiga wixii oo saxan aad ku qabanayso marka waxaa la yidhahdaa waxyaabahaasi waa waxyaabo galay maskaxda qaybta xasuusaha fog qaabilsan labadan qodob marka waa laba qodob aad sagaag dhow oo waxa weeyaan in aad qorto saameynta xun ee caadadan ay kugu leedahay sidoo kale waxaa iyadana gaar aad u qoraysaa si gaar aad u qoraysaa saameynta wanaagsan ee caadadan marka aad joojiso aad ka helayso kadibna maalin walba markaad subaxii aad soo kacdo ayaad dib u eegaysaa oo aad akhrinaysaa si maskaxdaada aad u xasuusiso maskaxda marka la rabo in wax loo sheego qaabka ugu sahlan wax loogu sheegi karo waxa weeyaan in waxa aad qorto marka aad qorto oo 2 jeer ama 3 jeer aad ku celiso maskaxdaada si fudud ay u qabanaysaa waxaasi marka caado xun marka aad joojinayso saameynta wanaagsan ee ka dhalanaysa joojinteeda iyo saameynta xun ee caadadan ay kugu leedahay qor sidoo kale haddii aad doonayso inaad bilowdo caado wanaagsan yana waxaad samayn kartaa inaad qorto caadadaasi marka aad bilowdo saameynta wanaagsan aad ka helayso inaad qorto sidoo kale inaad qorto caadada wanaagsan haddii aad bilaawi weydo saameynta xun ee kaga dhalanaysa naftaadana saameyn karta kadibna markaa labadaas saameynood midna ay wanaagsan tahay midna ay xun tahay ayaad maalin walba muraajacinaysaa oo naftaada aad u sheegaysaa ilaa marka dambe naftaada ama maskaxdaada ay ku keedinayso qaybta xasuusaha fogfog qaabilsan kadibna waxaan waxay kuula muuqan doonaan markaasi wax muhiim ah oo laga maarmaan ah oo ay tahay in la qabto sidoo kale saaxiib waxa laga yaabaa inaad isweydiinayso maxaan caado xun oo in muddo aan soo waday aan u joojin waayey ama caado wanaagsan oo aan rabay inaan biloobo maxaan u bilaabi waayey jawaabta kooban markaa waxay noqonaysaa waxaan kulama muuqdaan wax muhiim ah imika tusaalahaan caadooyin xunxun qof caadaystay haddii aad ku tiraahdo 5 qodob ama 5 saameyn oo xunxun oo caadadan ay kugu yeelatay ii sheeg laga yaabaa inuu laba dhaafin waayo waayo wixii waanu daraasin maba ogaba marka waxay maba ogaa maskaxdiisana uma aragto wax muhiim ah taa ayaa keensanaysa markaa markuu caadifadaysan yahay qofka in wixii uu ka qowmameeyo ama uu ka shallaayo marka caadifada ay ka baadana xumaantii hore ka sameeyo waxaan rajaynayaa saaxiibayaal inaad labadan qodob ka hesheen markaan idin caawin doonaan waxaan idin leeyahay markaa saaxiibayaal aad ay ugu mahadsantihiin muuqaalkan daawashadiisa sidoo kale waxaan idinka codsanayaa saaxiibayaal in muuqaalkan la adlaagaraysaan commentigana fikirkiina aad igula wadaagtaan haddaad fikirayeen xataa emoji soo qor ama mahadsanid sidoo kale saaxiib muuqaalkan waxaad la wadaagtaa asxaabtaada janalkana subscribe leh si ay kusoo gaaraan barnaamijyada kala duwan ee aan janalkan kusoo gudbiyo mahadsanid